Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta soo dhawaada asxaabta sidaa la socotaan maanta khamiis waaye maanta war fiican baan idiin wadaa khamiista aniga waxaan ka sheekeeyaa waxa maanta la keenayo iyo waxa isniinta soo socota hadduu alla idmo la keenayo. Marka asxaabta video kusoo dhawaada like saara. Okay, videoga haddaan u guda galno maanta haddaan ugu horeyno maanta update baa jiro sida shaashada hadda idinkaga muuqataba. Update-ku waa 133 meelahaas ayuu u dhexeeyaa. Qof walbaba wuxuu update-ku u soo saarayaa. Maanta update-kaas jiro hal soo update kareysto waa update aad iyo aad u yar waaye midweyn maan. Okay, hadda ugu gudbo update-ka kadib maxaad heli doontaa? Update-ka kadib waxaa heli doontaa iconic Chelsea ah. Iconic Chelsea waa kon hadda shaashada kaaga muuqda. Frank Lampard oo 97 tagayo iyo maxaa la dhahaye Petr Cech oo 93 tagayo. Marka asxaabta iconiga waa kaasa maanta hal iconiga la keenaya sida Liverpool ba hal iconic looga keenay. Okay, player of the week waa kan hadda shaashada kaaga muuqda. Griezmann ugu horeeyo, Riyad Mahrez oo kale waa u jeedaan, Romagnoli, Coman iyo Igor Aspas. Yacni inta ugu waaweyn waaye cidda karabti brother adiga ku taala. Player of the week maanta waa kaasa. Sidoo kale maanta waa khamiis oo abaalmarino weyn ayaa la dhiibayaa sida 2 legends, 4 black ball iyo trainers iyo counter attack wax loo ama heshiiska ayaa la dhiibayaa. Videoga hadda kan kasii horeeyay ayaan uga hadlay waa soo fiirsan kartaa asxaabta. Marka haddaan maanta uga gudbo isniinta soo socota maxaa la keenayaa sida shaashada idinkaga muuqata waa biggest club selection ever Konami ay keento. Waa club selection ki ugu weynaa Konami weligeed ay keento. Yacni waa club selection hadda isniinta hadda lasoo dhaafay Konami way nagu ciyaartay Schalke 04 iyo maxaa la dhahaye Bayer Leverkusen iyo ciyaalo xunxun Atlanta keenta. Atlanta ba uu rooneedbo. Marka haddii isniinta hadda lasoo dhaafay Konami ka xanaajisay marka isniinta soo socota way ka farxin doontaa. Boggeeda hadda waxaan dhex joogaa boggeeda oo internetka ay ku leedahay Konami www.konami.com. marka afartan club selection oo hadda idin muuqata ayay soo dhigeen. waxa ugu horeeya Real Madrid iyo Athletic Madrid, Bayern Munich iyo Juventus. afartaas ugu horeyso waa Real Madrid iyo Athletic Madrid. Hadda waxa laga yaabaa gameka waxa uu qorayaa Madrid Chamberlain waa loogadeeda waa mid hadda idin muuqata waxa uu ka wadaa Real Madrid. Okay, maxaa la dhahaye Madrid Roses wuxuu ka wadaa mid hadda loogadeeda idin muuqato oo ah Athletic Madrid. marka iyo Bayern Munich iyo Juventus haddaan club selectionka gudaha u galno ayadoo training la siiyay waa kan hadda haddaan uga hormarno Real Madrid. Real Madridna waa mid hadda shaashada idinkaga muuqata Sergio Ramos, Karim Benzema, Casemiro, Fred, Benjamin Mendy, Asensio, Courtois iyo Luka Modric. Ramos 96, Benzema 96, Casemiro 95, Rafael Varane 95, Benjamin Mendy 95, Asensio 94, Thibaut Courtois 93 iyo Luka Modric 92. Real Madrid club selectionkeeda waa kaasa. Real Madrid brother yaad ka rabtaa? Ma Ramos baa rabtaa, Varane baa rabtaa, ma yaa ka rabtaa Real Madrid? intee noo soo dhigaysaa mataqaana commentiga hoose noogu soo reeb brother. asxaabta Real Madrid waa ila fahamtiina oo maleynaya. Okay, Athletic Madrid
club selectionkeeda haddaan ayadoo training la siiyey haddaan idin tuso waa kuwa hadda idiin muuqda. Atletico Madrid xirtooda ama jabhadooda waa kuwana hadda idiin muuqda. Felix iyo Jan Oblak, Felipe, Angel Correa, Torreira, Trippier, Savic iyo Diego Costa. Intoodaba waa jabhad waxaan Atletico Madrid. Marka Atletico Madrid waa kuwaas 96 Joe Felix, Oblak 94, Felipe 94, Correa 94, Torreira 94, Trippier 93, Savic 93, Diego Costa 93. Brother Atletico Madridna yaad ka rabtaa commentiga hoose noogu soo reeb. Asxaabta haddaan meeshaas uga gudubno club selection saddexaad yuu noqon doonaa. waa koox baryahan adduunka haysato weliba Champions League. waa FC Bayern Munich. FC Bayern Munich dadka qaara waxay ka rabaan ciyaaryahano badan, weliba ma sheegayaan ciyaaryahanadaas. marka club selectionkeeda ayadoo rating la siiyey haddaan idin tuso waa kuwa hadda shaashada kaaga muuqda. wow, Bayern Munich club selectionkeeda waa kan hadda idiin muuqda oo Lewandowski, Davies, Kimmich, Gnabry, Sane, Sul, Neuer, Goretzka iyo Müller. Bayern ugu fiican oo maleynaya, bal fiirso ninka lagu magacaabo Davies waa iga yaabinaya, waa LB, waa cunug xabaaro dheer. Lewandowski ku xigaa si fiican u fiiriya 97 ayuu tagayaa LB-giisa. Lewandowski 98, Davies 97, Kimmich 96, Gnabry 96, Sane 96, Sul 96, Neuer 95, Goretzka 94, Müller 93. Bayern Munich club selectionkeeda waa kaasa. asxaabta hal club selection baa noo haray, waa Juventus club selectionkeeda markii ratingka la siiyo waa kan hadda idiin muuqda. club selectionka Juventusna waa kaasa. Ronaldo, Kulusevski, Arthur 660, Chiellini, Morata, Ramsey, Bonucci iyo Danilo. Ronaldo asaa meesha ugu weyn, Torreira asaa meesha ka ah 98, LWF. ninka lagu magacaabo Kulusevski 96, Arthur 95, Szczesny 94, Chiellini 94, Morata 94, Bonucci, Ramsey 93, Bonucci 93, Danilo 92. marka asxaabta waa kuwaas club selectionka Juventus. Isniinta box darowga waxaan soo dhigi doonaa maalinta Axadda. maalimahaas ayaan hadda qodobkan sheegna asagoo kasii faahfaahsan ayaan soo dhigi doonaa hadduu alle idmo. marka asxaabta waxaan idin sheegayaa halaas waaye waxa isniinta la keenayo. Khamiistana waxaa la dhahayay sida hadda idiin muuqata laba clubs, 2 iconic baa la keenayaa, ama iconigaasha Konami ay keeni doonto sanadkan. maxaa la dhahayay Bayern Munich iconigeeda oo kale hadda idiin muuqanaya, iyo Roma iconigeeda oo hadda idiin muuqanaya. intaas waa asxaabta. marka asxaabta waxaan idin leeyahay maalinta idiin wacnaato. videogana like saara, sharena ku qabto, commentina kasoo bixiya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.